marka hore waxaan idinku salaamayaa qof walba magaciisa iyo mansabkiisa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaadka in badan baa la hadlay hadalkii waa la dhameeyey anigu waxaan ku soo koobi lahaa horta muwaadiniin ahaan dadku ciidagalay ka hadlayeen ciidagale waa la yahay laakiin muwaadiniin baa tihiin haddana waddankana xaq buu idinku leeyahay waddani ahaan buu xaq idinku leeyahay idinna xaq baa u leedihiin in waddanku wax idin qabto labada arrimood waa taasi dawladdu aad bay ugu mahadsan tahay waana waajibkeeda meeshii dhibaata ay ka jirtaba ama oomane ha ahaato ama wax kale ha ahaato in wax laga qabtaa xilka dawladda saaran weeyaan sidaa aawadeed baana kan iyo qaar kaleba loo samayn doonaa ilaahay idankii waxaa loo baahan yahay sidii horeba loo sheegay in balligaasi ama daamkaasi markuu hirgalo uu noloshiina bedelo oo meeshani ay meel ka bedelan sida imika ay tahay iyo oomanahay tahay inay ka bedeshaan baa loo baahan yahay qool dhuxulaale war dhuxushaa ka bedele la gubayo oo meesha wax kaloo bixiya qoom barwaaqe iyo wax u bixiya ilaahay idankii kana dhiga caynka oo waxa yeelaysaan ilaaliya dhirta dadka gubaya bilays u noqdo oo ka celiya dhirtu waa waxyaalaha roobka keena ee wax hagaajiyay ka mid tahay idina magaciiba ula baxdeen in meeshan ay dhuxusha laga shido waxa yeelaysaan iskuulka horta sidaan idin sheegay dawladdu wax kasta iyadoo karaankeeda kolba ku xisaabtamaysa in kolba wax la idin qabtaa waajibkeeda weeyaan waa kan wasiir Saleebaan aad iyo aad buu ugu dadaalaa in waddankani u biyo helo xalay oo aniga iyo isagoo aanu ka qayb galnay shir dawladda Jarmalku niman fara badan oo wafdi ahaa oo waddanka joogay wuxuu saacad iyo bar ka hadlayay biyuhu inay yihiin nolosha bani aadamka wax waliba biyaha inay ku noolaadaan ayuu ka hadlayay meel kasta oo la iskugu yimaadana wasiirku wuxuu ka hadlaa biyuhu biyo la'aan inaan nool jirin ayuu ka hadlaa waa mid ka dhab ah waa mid uu hirgelinayo waa mid uu u dhaarsan yahay inuu sidaasi sameeyo ilaahay idankii iskuullada iyo wixii HCM-ka iyo wixii kale jira tiyo kolba lagu qiyaasayo dadka meesha degan intay yihiin iskuulladan idinka warramo iskuulka had iyo goor waxaa lagu qiyaasaa imise reer baa meesha degan carruurta iskuulka u baahan waa intee waxyaalahaasi wixii iskuulka inta uu dhisan yahay wixii ka maqan waanu ku dari doonaa ana idin ballan qaaday in lagu dari doono HCM-kana dhakhtarka waanu u geli doonaa qolada caafimaadka in iyaguna wixii ay ka qabanayaan ay ka qabtaan waxaan se idin leeyahay ilaashada noloshiina meeshan ku bedela hagaajiya dhirtana ilaaliya assalaamu calaykum